Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada koorsadeena AutoCAD Drafting Course Lecture 17 oo aan ku baranayno Hatch and Construction Line, okay? Meeshaan waxaa noo daaran softwarekeeni AutoCAD. Hatchka marka faa'iido badan uu leeyahay. Yacni si haddaan kuugu sheego Hatchka halkaan uu ku jiraa waxaa loo adeegsadaa area xiran, okay? Meel xeyndaab ah oo la rabo in color lagu buuxiyo, okay? Marka colorkaas lagu buuxinayo wuxuu noqon karaa color isku wada eg oo solid aan u naqaano. So marka halkaan aan kaa tusi doonaa waxaa ilaa 3 nooc ayaa jirto, okay? Waxyaalaha Hatchka lagu buuxin doono, okay? Mid waxaa la yiraahdaa solid ayaa la yiraahdaa, okay? Okay, mid waxaa la yiraahdaa waa kuwan aha. Mid waxaa la yiraahdaa solid, midna waxaa la yiraahdaa gradient, midna waxaa la yiraahdaa pattern. So marka labadan waa kalaro, waan isla arkaynaa waxay ku kala duwan yihiin. Kan color caadi waaye, kanse laakiin 2 color ilaa 3 color camal ayuu ka kooban yahay. Pattern-kana waa naqshado kala duwan, okay? Waa fahmaynaa marka waxa laga wado. Marka hore solid aan ku bilaabno, okay? Waxaan kuu sheegay escape aan dhahno inaa halkaan ka helaysa Hatch ama comment ahaan H haddaa geliso H waa for Hatch, okay? Enter aa leedahay, okay? So marka maxaa ujeedaa haddaa muuskaada la timaado meel xiran Hatchkaas uu gelinaa, okay? Sidoo kale intoo kale waa ujeedaa meeshaan oo kale, halkaan oo kale, okay? Halkaan yartaa oo kale. Sidaas adi meel kasta u buuxina. Marka maxaan ku dhahaa solid, pattern iyo gradient waa, okay? Hadda solid maxaa laga wadaa color isku wada eg waa. U fiirso meeshaan waxaan sameynaynaa hal color oo isku wada eg waa, okay? Enter aa leedahay marka. Sidaas hadda kuugu qaatay, okay? Solidka marka waa sidaan waa hal color waa. Haddaa rabto inaad color ku beddesho waa ku dhufanee. Meeshaan yellowga ahayd le waxaa ka dhigaysaa guduud aa ka dhigaysaa, okay? Inaa i fahantaa rajeynaa, okay? Close Hatch iska dhehe ama enter, okay? Close Hatch ama enter, okay? So markaan waxaan isla fiirinaynaa pattern-ka, okay? Pattern ama gradient-kana aan fiirino. Gradient-ga marka kalaradan kala duwan uu leeyahay. Halkaan haddaa furto adiga 3 color camal waa ma ujeedido. So marka mid iska dooranay kan circle-ka oo kale hadda iska kanba ka soo ama kan dheh kana waxaa ila qurxan, okay? Halkaan aan ku shubaya, okay? Marka waa sidaas oo kale waa asagana, okay? Waa ila fahantay. Asagana macna kan waa color wada hal nooc ah waaye, balse kan xoogaa gradient-ga waxaa waaye dhowr color oo isku jiro. Weliba 3 color u badan madowgan hoos ka ah buluugga iyo jaalaha, okay? Kasoo gudub marka. Waxaan markaan fiirinaynaa marka Hatch noo dheh. Markaan waxaan fiirinaynaa pattern, okay? Pattern-ka marka halkaan ay ku jiraan qaanadaan aan furaya. Qaanadan marka waxaan ka soo qaadin hadda waxaa assume gareynaynaa ila fiiri kana inuu derbi yahay assume gareynaynaa. Marka derbi maxaa lagu shubaa material ahaan brick inaan adeegsano waa sax ama stone dhagax ama bulkeeti, okay? Bulkeetiga noocan oo kala qabsanaa, okay? Colorka bulkeetiyada camal aan ka dhigaynaa. Colorkan camal waa la dooran karaa. So marka waa ku dhuftay. Still marka maxaa ujeedaa in yacni solid uu eg yahay. Sababta ma taqaana anoo pattern doortay solid waa uu yahay scale-kiisaa yar. Scale-ka hadduu yar yahay waa weyneyne. Hadduu weyn yahana waa yareyne. Ila fahan halkaan laga yareeyaa. Meeshaan hadda anigu ma ii qorno. Meeshaan oo kale hadda 500 dheh. Hay ku dhufo kadib. Zaid waa weyn yahay, okay? 100 macquula markaas. Markaasaan uu kaaga weyn yahana waa soo yareyne. Maxaa ujeedaa marka meeshaan bulkeeti qurux badan ka soo baxay. So marka Hatch aa la adeegsadaa Hatch. Without Hatch waxaan ma sameyn lahayn ani, okay? So marka inaa ila fahantaa rajeynaa hadda marka. Maxaa meeshaas ku fahantay 3 nooc inay jirto. Mid maxaan ku iri waa solid, mid waxaan ku iri waa gradient, midna waxaan ku iri waa pattern. User defined-kan maxaa mid adiga hadda kadib abuuranaysid waaye. So marka markaa usoo laabano solidkeena markaa usoo laabano waa kana tusaale ahaan hal mar aan ku dhufano solidkeena waa kana usoo laabanay, okay? So marka hal mar sidee loo deleedaa macnaha Hatch hadda waa ku soo mugtahay. Hatch oo kale darti inaad deleeto waa ku dhufanee. Markaad doorato meeshaan remove aa ku jirto, okay? Remove-ta dooro kadib shayga boundary-giisa dooro. Calaamadaas ku soo bixi doonto. U fiirso markaa geeyo boundary-ga calaamada plus-ka ay soo bixi doonto click ku sii kadib enter dheh. Okay, weli ma uusan bixin cafwan. Mar kale waxaan leenahay remove. Halkaan imaaw. Okay, ma doorno. Noo door marka hore. Markaan noo doorto remove dheh. Dul imaaw plus-ka markuu noqdo click ku sii kadib enter dheh. Okay, sidaas uu kaaga bixi doonaa. Kan noo door marka. Kana aan bixino, okay? Kana maxaan sameynaynaa remove aan leenahay. Waa dul imaanaynaa click markaan ku siino enter sii dheh. Okay, marka horena kana ku jiray cafwan ya laba Hatch uu lahaa. Remove dheh. Sidoo kale calaamada plus click ku sii enter dheh. Okay, remove enter, okay? So marka saasna waa loo saaraa, okay?
waxyaalahan kale marka muxuu ka wadaa u fiirso waxyaalahan big point markuu ku leeyahay hadda anaga markaa soo dooran hashka barta area da maano iska muuska iska tulkeenu way qaadanaysaa big point waxa laga wadaa marka big point hadda dooro fiiriya hasha ii dooran big point yaa dhaha bartaa ku dhufto ka qaadana fiiri mujeda bartaa ku dhufto hore ka qaadana isagana waa qaabkaas oo kale okay waa elephant ama wax cusub maaha big point kaas okay waxa raba marka arabna in isla fahanno waxay tahay solid nooga dhig meeshan color solid ah okay hash noo dheh kuwaan rabnaa in isla barno meesha kalarada okay solid soo maaha okay kalarka marka halkaan laga bedelaa kalarka nooca rabto adaa ka dhiganayo okay waxaa kuu soo harta marka kalarka kanaa kuu soo haray waxaa sameynaa marka kan okay kan oo kala ku shubaa okay marka ku shubo maxaa sameyn kara hadda kalarka waa kan gradientiga patternka marka wuxuu leeyahay kalar kale oo background ah background halkaan ka bedeli kartaa tusaale aan baashan saan maano backgroundkiisa waxaa ka dhigaynaa jaalle ka dhig مثلا okay cafwan hal mar waxaan noo soo doortaa hash noo soo door so patternka nooga sii door marka hadda patternkeena green waa sax color u sameynaa marka colorka jaalaha ka dhigaa maxaa ujeedaa marka ama color arki karo aan raadino kan oo kale ma jeeda yacni backgroundka waa halkaas ina ila fahantay backgroundki okay gradientigana waxa waaye sidoo kale asagana colorka waa ka bedelan kartaa okay noocyo kala duwan naftirkiisa wuxuu leeyahay maxaa la dhahay patterns kala duwan asagana halkaas ka soo dooran kartaa okay marka intaas oo dhan waa isla fahnay waxaa noo soo haray marka transparency-ga hash transparency okay transparency-ga marka maxaa sameynaya u fiirsa hadda meeshan waxaa sameynaa rectangle halkaan ka sameeyey su'aal ahaan dhinacaan oo kale hadda waxaa rabaa waa qarinaa fiirso sameynaa marka layer sameysanaa layerkaas waxaa u bixin doonaa rectangle ayaan u baxsanaa okay layer cusub ayaa markaan create garanaynaa waxaan furaynaa marka meeshan layer properties ay ku qoran tahay okay wax rectangle ma jiraan marka rectangle okay okay layero badan oo noo furay marka kan layer 1 oo ku qoran leh magacaan ka bedelinaa asaa active ka dhigaynaa waxaan leenahay rectangle okay rectangle ayaa leenahay okay kalarkana maxaa ka dhiganaa rectangle kaas blue oo kale tusaale ahaan kadibna noo door naga xir marka waxaan sameynaa marka waa soo dooranaa waxaan siinaa rectangle okay kadib marka maxaa rabaa marka aniga waxaa rabaa ku fahansiiyo marka waxaa rabaa inaan rectangle aan buuxiyo waaya marka anoo aan kuwa kale iska xiran haddaan waa buuxinaa hash soo doorto u fiirso rectangle ko dhan ma la wada buuxinaa mujeedido meeshii xiranba waxbuu ku buuxinaa kalar soo saas ma raba ani waxaan sameynaa marka meeshaan layer marka ku soo laabanaa right click aan leeyahay select all aan leeyahay kadib waxaan sameynaa turn off aan leeyahay demi aan leeyahay marka muxuu leeyahay box digniino isoo dira kan hadda aad ku shaqeynaysa mixire mase waxa waaye waa asagana on ku ahaana waxaa leeyahay keep the current layer on marka kaas bisa ii shaqeyn doona mujeedido soo marka kaligiisa meeshaan ii yaal hadhow maxaa sameynaa hashkiisa soo marka meeshaan hadhow marka maxaa sameynaynaa meeshaan ku soo laabanaynaa right click dheh select all dheh kadib mid kamid ah daar okay kulli hadda way wada joogaan marka aniga waxba kama arkayo meeshaan sax transparency-ga marka 0 waay macnaheedu markaas waxa waa kalarka full oo qaba waxaan ka dhigaa 50 u fiirso enter dheh okay maxaa ujeedaa xoogaa waxbaa laga arkaa ay 80 dheh ama saan u yarey kartaa si kale khayray saan haddaa u qabato waa yarey kartaa okay caadi ahaanna waa u geli kartaa haddaa rabtana waa yarey kartaa hadda meeshaan meeqa waa 80 aan ka dhigaynaa okay 5 aan la socota naga tir okay maxaa ujeedaa marka transparency uu sii yiraahdo marka halkaasna waxaa laga bedelaa transparency-ga ayaa laga bedelaa okay meesha angle-kana maxay tiri fiirso angle-kana waa tanaha soo ma angle-kana lemiska iyo markaa isticmaalaysid muhiim waa fiirso hadda maxaa waa angle-keeda 0 waa okay angle-ka waa bedelaa fiiri yacni mid kale aan sameeyo tusaale ahaan si uu angle-ka isbedelkiisa aan kuu tuso waxaan sameynaa mid kale aan sameynaa kan hadda waa iska dhaafaa okay kan iga tir okay kan markaa iga tirto soo dooro naqshadaha marka waxaan ka dooranaa okay tan oo kale ayaan dooranaa okay markaad doorto marka scale-ka yacni macnaha markaas oo kale oo yar waxaa sameynaya marka 500 oo kale ka dhig okay weli si fiican looma arko
ilaa 900 gaarsii. Okay wili waa yar yahay marka colorkaana naga dhex. Okay wili waa yar yahay waxaa sameynaynaa 2000 camal ka dhig. Okay markaan xogaa waa la arki karaa. Okay marka fiiri angle-ka u fiirsaya. Angle-ka hadda 0 waaye. Qaabkan hadda u jiifo 0 ah. Okay 90 ka dhiga u fiirso. Waxaan sameynaa 90 ka dhigi. Hay dhinaca kale noqonaa u fiirso. Waxaa ujeedaa dhinaca kale u saftay. Marka angle-kana meeshaas laga saxaa. Okay ku dhufo. Maxaa kaloo meeshaan muhiim ka baran karnaa? Hadda isla baranay 3 nooc inay jirto. Color-ka meelaha laga bedelo, transparency-ga, angle-ka waa isla fahanay. Set origin-kana wax kale maaha. U fiirsaya. Set origin waxa origin-ka u lahaa bedelma. Marka xogaa waxa isbedelaya meeshaan fiirso. Ujeeda. Haddana bar kale set original bar kale tagaa. Xogaa wuu sisikana shaygi dhaqaaq uu sameeyna macnaha because of the new origin. Okay origin-ka cusub asmeynaa dartii isla bedela. So marka associative muhiim waa. Hadda muxuu noo yahay active. Markuu associative active-ka noo yahay faa'iidada uu leeyahay fiirso. Waxaa sameynaa associative waa shaygu isku xiran yahay hash associative ah maano. Waxaa sameynaa hadda shaygan stretch ku sameynaa waa qabtay waa jiiday. Baashan if ortada aan iska daaranaa. Kadib dhinacana u jiidaa. Maxaa sameynaa marka kaliya halkaas automatically maxaa u jeedaa area-dii hore ka qaatay. Okay dhinacana haddana qabanaa waa jiidaa. Okay maxaa u jeedaa marka why uusan u sameynayaa because waxa waaye waa associative waa waayahay associative-ka ka qaada u fiirso kaliya ma dhihino associative-ka qaad isbedelka markii la fahanaya markaan waxaa sameynaa rectangle-kii waa dooranaa. Okay stretch ayaan leeyahay halkaan oo kala geynaa. Hay maxaa u jeedaa dhinacan soo qabo dhinacan keen. Hay maxaa u jeedaa wacni associative la'aanta dhibkaas keeneedo waxa waa hashki bartiisu ku ekaana. Okay so marka maxaa kale noo dhiman oo muhiim ah isla fiirino. Okay wax kale haddana isla baranayna kan oo kale hadda naga delete kan oo kale naga delete rectangle kale meeshaan ii keen rectangle kale soo meeshaan u yaal hash dheh. Okay kanna ka delete isla hashkan geli marka mujeeda labadan waxa u jeedaa u fiirsaya labadan marka midkood doorto. Okay cafwan hal mar waxa rabaa inay isla doorto. Okay delete dheh. Okay kanna delete dheh. Delete waa qaab kale loo dilaadiyaa remove la data baranay. So marka hashka soo dooro kan geli kanna geli. Okay hadhow marka u fiirso maxaa waaye marka doorto hal objective waaye marka saan oo kale marka u wada geliso daa rabto inaad wada reebto inaad separate ka kala dhigto oo kala reebto maxaa sameynaya waxaa maana meeshaan option maxaa leedahay separate hashes kadib maxaa sameynaya marka kanna gooni waaye kanna gooni waa. Okay hadhow marka kana waxaa leedahay war ani solid iiga dhigan ma fahantay I hope inay faa'iido leedahay ayadana ku anfacayso. Okay maxaa kale marka nooga dhiman qaybtan associative isla aragnay match properties aa jiro. Match properties laba option aa jira laba qaabka ugu horeeyo oo set guarantee ah waa ujeedaa Soomaa balse intaad horta match dhihin wax aniga tusaale ahaan waxaa rabaa rectangle macnaha kana rabaa inaan bedelo kana waxaa rabaa gradient inaan ka bedelo oo cagaarkaas oo kale ii qaato maxaa sameynaa marka kan la bedelayo u fiirsaya ila soco kan yacni la bedelayo ayaa dooranayna kee waa kan arrin inaan bedelno waa kan sax waa bedelaa mugtaa option aa leedahay option maaha match properties aa leedahay markaa doorato kan aad kusoo bedelaysid aad dooranay maxaa ujeedaa automatic cagaarka u qaatay. Okay z dheh optionka kale marka maxaa waaye marka dooro kadib waxaa leedahay match properties use source hash aa leedahay soo maha waa doorane shayga source-ga le u tagay uu qaadanaa. Okay ina la fahantaa rajeynaa. Okay maxaa kaloo marka hash nooga dhiman remove iyo xalaan waa isla aragnay. Okay option kaloo marka ayagana muhiim aan ku tusaa. Okay waxaa sameynaynaa circle ayaan shaygan gudihiisa gelinaynaa. Okay circle ayaan gudaha gelinaynaa. Okay marka waxaan sameynaynaa u fiirso hash ayaa leenahay button ayaa noo dooran button-ka kan camal aan ka dhiganaynaa soo uma jeedid click ayaan leenahay u fiirso marka button-keen hadda maxaa u jeedaa waxyaalo yaraan ku tusaa dooro meeshaan option-iska imaaw hadda maxaa u jeedaa button-keena meeshaan ma soo dhex gelayo. Okay marka waxaa leedahay option meeshaan ayaa sii furaysaa wuxuu leeyahay normal island wuxuu leeyahay outer iyo wuxuu leeyahay ignore fiiriya haddaa ignore dhaho wuu dhex marsiinaa circle-ka ma jeedaa hay haddaa dhaho
haddaan dhaho normal wuu ka dhaafaa oo waxa waaye bahalkaana wuxuu u aqoonsanaa border gooniya halkaasna border gooniya sidaasuu kugu sameynaa okay haddaan dhaho marka outer island so marka hadduu books kale jiri lahay oo ii sameyn lahay okay okay iyagana sidaasoo kale haddii u baahato halkaas ayaa ka bedeli kartaa maxaa kaloo hadda noogu dhiman waxyaalaha intaasa ugu muhiimsan hadda hashka inaad ka ogaato marka area aan sax ahayn makuu hash makuu geli doono u fiirso hadda meeshaan soo saan maaha waxaan leeyahay explode aan leeyahay kala jebi ama sug ama waxaan sameynaa meeshaan rectangle-ka ah offset iyo geli oo 0.5 camal ah wax badan ma rabo okay 0.5 waa yar tahay offset 20 camal iyo geli okay u fiirso intaas oo ma yara intaas bisaan tiraa u fiirso trim iga dheh markaa tiro labadan leena iga delete hadda meeshaan halkaas yarkaa ka furan tahay sax waxaan isku dayaa inaan hash dhaho u fiirso okay waxaan sameynaynaa explode ii dheh okay kala jebi macnaa shaygaa marka hore isku xiran okay okay kan oo kale hadda marka waxaan isku dayaa inaan hash dhaho okay waxaan ujeedaa closed boundary ayaa la rabaa marka hore asagaa joined ah yacni shay hal object waa okay okay sida hadda kusoo celi xataa u fiirso markaan uu kala jaran yahay xataa waxaa ujeedaa closed boundary marka meeshan maxaa ku fahantay shay iswato oo one object ah oo joined ah haddii xataa meel yar uu saan oo kale uga jaran yahay wuu qaadanaa dhib ma u keenayso laakiin maalintaa kala furfurto oosan xuduudiisana aysa xirneen ma qaadan doono okay saaxiib yaal hashka inaan wax badan ka fahanteen rajeynaa markaan waxaan isla arkaynaa construction line okay construction line ayaa sidoo kale isla arkaynaa markaan waxyaalahan naga delete okay construction line marka wuxuu ku jiraa qaybtan drawga waa optionkan okay soo dooro markaa soo doorato midda kale xl na waa la lahaa okay xl na waa lagu raadiyaa okay markaa soo doorato marka annaga saddexdan xabaan ka baranaynaa horizontal asoo ah vertical asoo ah iyo angle asoo ah marka muxuu taraa kan oo kale aad u muhiim u yahay yacni alignmentiga lagu saxaa isku aadanaanta shay ayaa lagu ogaadaa tusaale ahaan hadda labadan rectangle ama drawino kala duwanaa jiro waxaa rabtaa alignmentigooda inaa ogaato soo marka hadda fiiri horizontalka dooranaynaa marka horizontalka marka dooro ku dha maxaa sameynaya big point uu ku leeyahay halkan iyo halkan ayaa leeyahay soo marka labadan line cafwan okay hal mar aan ku laabano xl aan dhahno waxaan horizontalka dooro horizontal waa jiifa leenka marka waxyaala cajiibka u leeyahay waxay tahay haddaa si kasta u fogeedo meel uu ku dhamaaday meel uu ka bilaawdo ma arkaysid okay sidaa daraadeed marka meel kasta uu ku habboon yahay okay markaa door hadda alignmentig maxaa ogaanay shaygan geeskiisa iyo geeskiisa kan waa kala dheeriyin distancegana u dhexeeya okay okay hal mar haddaa ku tuso distancegana u dhexeeya okay cabirkaas ayaa u dhexeeya soo alignmentigooda ma saxna iskuma beegna okay wuxuu kaloo muhiim yahay construction line-ka markii oo la sameynayo waxaa la dhahayo grids okay hadda gridska oo kale markaan rabno inaan sameyno tusaale ahaan hadda extended eh kan okay explode marka hore okay extend ide okay so marka construction line-ka isoo door marka isoo doorto markaan vertical aan ka dhigaa waa kiyo la joojiyo lewa okay so marka la joojiyo meel vertical oo kale ku aadisay okay hadhow grid lines saas oo kale loo samaystaa okay okay hadii grid lines ka hadhow sidaas oo kale u samaysana markaa samaysanayso okay so marka centerada waa lagu ogaadaa alignmentiga laba shay inay isku beegan yihiin in kale hadda u fiirso waxaan sawiraynaa laba rectangle okay rectangle-ka marka waxaa sameynaa okay cafwan hal mar iga delete rectangle soo dooro okay markaad doorato marka rotation aan gelinaa adiga rotation oo iska qiyaas aan gelinaynaa tusaale ahaan angle oo intaas oo kale la eg ayaan iska gelinaynaa kadib marka waxaan sameynaynaa sidaan oo kale rotationka markaan tijaabinaa sababtoo ah horizontal iyo vertical iska cadyihin kan copy ii dheh copy dheh meeshaan ka qabo halkaan oo kale geey okay
haddana soo copy garay halkaan oo kale gey haddana okay so marka u fiirsaya construction line ku laabo horizontalka dooro marka muxuu ku leeyahay specific point okay hal mar cafwan x line waxaan sameynaynaa dooro angular ii dooro markaan angle aa ku jira macnaha marka angalka keliya ku leeyahay angalka haddaad taqaana gasho haddaad aqooninna point ii qabo ku leeyahay okay sameynaa bartaanaan qabsanaa barta kalena waatan ha ayala marka saasuu kugu qalluucay ma jeedaa angalka wuu kuu keenay okay haye okay so uma jeedid so marka hadda labadan shay alignmentigooda fiiri so kan cornerka meesha u ah waxay ku dhacay kan centerkiisa ma jeedaa so marka waxyaalahaas asagana muhiim u yahay grid scan markaa ku samaysanaysid muhiim waaye center to center distancega waxyaalahaas dhan lagu calaamaystaa marka saaxiibayaal idinkana practice badan ayaan idin rajeynaa lecturekeena halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaa inoo balana lectureka kan xiga oo ah lectureka ugu dambeeya insha allah